لله وإنا إليه راجعون قدر الله وما شاء فعل runtii geerida qadiiji waxay daris weyn u tahay dadka iyada garanaya oo dhan runtiina adduunyadu inay gadgadoomayso lagana diyaar garoobo oo waxa aynu ku hamiyeyna iyo waxa qof kastaba uu wado warkiisa ugu dambeeya uu noqon doono uun la kulanka ilaahay iyo qabrigiisa wuxuu ku diyaarsaday shalay un bay ahayd markaad galayno beejkaaga soo dhigaysay in isku diyaarinayaa madaxweynenimo oo ka tartamaya Puntland oo geeriyooday Allah isna ha u naxariisto Khadiija Maxamed Deeriye geerideedu runtii geeri xanuun badan bay qaraab ahaan iyo qoys ahaanba nagu noqotay maanta markaanu maqalnay waxaa ku dhimatay magaalada Djibouti caasimadiisa ilaahay qadarkiisa ayaa intaa ku eekaa bartaasa runtii alla ku oofsaday ilaahay waxaan uga baryaynaa ilaahay weynidii wanaagga iskale jannooyinkiisa dembigeeda inuu dhaafo qabrigeeda u nuuriyo qof kasta oo garanaya oo runtii qalbigiisa ay ku jirto qiimaha ay lahayd iyo qadarkay mudneedba waxaynu ka garanaynaa sida runtii tacsideeda qof kasta oo Soomaaliyeeba uga damqaday intaa markaan ka soo gudbo waxaan jeclahay bartan inaan uga mahadnaqo dawladda Djibouti madaxweynaha Djibouti runtii dadaal weyn ku bixiyay muddadii 2 cisho ahayd ee magaalada Djibouti joogtay caafimaadkeeda dhakhtar weyn la geeyay waxaan jeclahay inaan fursadan uga faa'iideysto ra'iisul wasaare Xamse oo aan ku hambalyeeyo inuu shaqooyinkiisii wada hakiyay shirkii barta qolada Heritage ka waday iyaguna imika inay hakiyeen baa igu maqaalaa for the sake of Khadiija geerideeda waxa runtii dadaal lagu bixiyay geerideeda ka hor in dhakhtar Turkiya loo sii qaado muddadii ay ku jirtay dhakhtarka Djibouti waliba dhakhtarada ugu wanaagsan baa la geeyay laakiin qadarka intan ku ekaa dawladeedu way diyaarsanayd oo dawladda Djibouti baa u diyaarisay logisticalina ra'iisul wasaare Xamse iyo dawladda Djibouti baa ka wada socday way ku sharaf mudan yihiin way ku ammaan mudan yihiin waan ku bogaadinayaa runtii doorka shariifka dadnimada leh ay ka muujiyeen runtii geerida Khadiija intaa markaan ka soo gudbo Khadiija waxay ahayd maamo Soomaaliyeed qof runtii ilaahay sifooyin fara badan oo wanaagsan uu siiyay bay ahayd qof farxaanada bay ahayd waxyaabaha gaarka u lahayd waxaa ka mid ah runtii qof damala oo lagu soo hirtabay ahayd qof runtii deer u ah dumarka Soomaalida ayay ahayd qof runtii aan calool ku sid lahayn bay ahayd qof runtii naxariis badan bay ahayd qof aan intaan anigu aqoon ka lahaa walaa nusaki cala laa axad laakiin aan ku fooganayn dunya dhaqasho laakiin dad dhaqasho jeclayd bay ahayd de kullayba waa la aasi doonaa aaskeeda aas qurux badan baa u dhici doonaan isleeyahay insha allahu qalbiyada dadkana qof ku weyn bay ahayd qabrigeedana qabri qurux badan inuu ilaahay uga dhigaanu rajaynaynaa waan kaaga mahad celinayaa runtii iyadoo de mawsim murugo ay tahay in haddana mikrofoonka aad ila timid oo bartan aad igu soo haleeshay ka xasan ahaan iyo bahda kale ee saxaafadaba runtii oo aad u qaadaa dhigaysay geerideeda intii hadda aan salaada ka soo baxnay kadib de waa samiriye iimaan runtii qof kasta oo de garanayay qiimaha Khadiija lahayd ee qalbigiisa ay ku jirtaba de samiriye iimaan baanu ka leenahay inagana wuxuu baynoo muhiima diyaar garow ilaahayna waxaanu ka baryaynaa khaatimo wanaagsan dambi dhaaf jannadiisa inuu nagu wada kulmiyo
maamadaana ilaahay subxaana wa tacaala janneeyo. xildhibaan inkastoo ay goor dhoweyd geeriyootay haddana ka qoys ahaan ma laydii sheegay halka lagu aasayo Jabuuti ama Muqdisho? horta dee caylada hinteedii badnayd caruurteedii waxay joogaan magaalada Muqdisho. logisticalina diyaar garaynta goobta iyo goortuba waa wax ku xidhan dowladda Soomaaliya, madaxweynaheeda iyo ra'iisul wasaaraheeda iyo golahooda wasiirada. runtii dee geerida qaraabada iyo qoyska ku tacalluqaysa kolleyba wax siyaasada geli mayso. waan rajeynayaa ilaahay idinkiisa inay geeri wanaagsan u dhici doonto. waanan runtii ku hanweynahay ducadeeda iyo gudgalkeedaba inaan goobjoog ka noqono insha allah haddii ilaahay subxaana wa tacaala noo sukhiro aniga iyo odayaal badan oo faamiliga ka midaba haddii ilaahay qadaro. kolleyba talena waa isuula noqon doonaa. aad iyo aad baa mahadsantahay. markaa xildhibaan waxaad doonaysaan inaad aaskeeda kaga qayb gashaan magaalada Muqdisho haddii ilaahay wadalo ka dhigo? wallaahi dee horta dee geeridu xanuun badan bay leedahay runtii oo qof kasta way saamaysay, annagana wayna saamaysay. wuxuu haddii aanay arrimo siyaasiya ku tacalluqaynin oo bini aadamnimada iyo wada dhalashada iyo islaamnimada iyo wadajirka qoyska iyo qofka dumara qiimahay lahayd iyo qadarkeeda